su-aasha igu badan ee golaha ku badan ee madaxda dawladda hoose ku badan waxa weeye waddooyinka madayn baa ku qaadateen hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena dayn maaha oo deeq maaha waa cashuurtaadii oo kuu ururtay oo waddadii aad u baahi qabtay lagugu dhisayo waxaan dadka caasimadda ku nool shacab weynaha ku nool Hargeysa u sheegayaa in maanta ay tahay wax ilaahay loogu xamdi noqo in waddadii ka soo gelaysay magaalada bari iyo tii galbeedka labadiiba inay socdaan oo insha allahu tacaala maalmad yar ka bacdi qofku uu mari doono waddo uu mahadiyo oo weliba isaga oo madaxa kor u taagayo uu dul maro yidhaahdo alla ilaahay cashuurtaydii waddo ma ii goysay haddaad isweydiinayso ma dayn baa lagugu dhisayaa dayn lagugu dhisi maayo haddaad isweydiinayso ma deeq baa deeq lagugu dhisi maayo su-aasha igu badan ee golaha ku badan ee madaxda dawladda hoose ku badan waxa weeye waddooyinka ma dayn baa ku qaadateen jawaabtu waxa weeye iyadoo kooban maya dayn maaha deeq maaha dadka oo la dhibo oo la yidhi wax ku soo dara maaha waa cashuurtaadii boqolkiiba boqol waa cashuurta lagaa qaaday oo lagu ilaasho oo lagu tashiilay dabeetana waddadaad u baahi qabtay lagugu dhisayo oo weliba waddo tayo leh lagugu dhisayo muwaadin dawladda hoose ku dawarsan mayso oo kaalay oo waddadan nala dhisku odhan mayso waddooyinku waa laba waddooyinka xaafadaha iska dhex mara waynu iska kaashanaynaa laakiin waddooyinka magaalada u mudnaanta leh dhaqaalaheeda iyo quruxdeeda mudnaanta u leh loo dawari maayo cashuurta lagaa qaadaa lagu dhisayaa sad saaka ma arkayso muwaadin waxaan kula hadlayaa saaka cashuurta soo bixi oo weliba hubi in lagaaga qaado sifo sharci ah oo markaa hubi cashuurtaad bixisay in wax lagugu qabanayo inta maanta wadda Hargeysa ka socotaa maalintay dhammaato intii kale aynu dhagax dhigaynaa dadka reer Hargeysa laba baan ka rabnaa laba waxaanu ka rabnaa kow cashuurta inay soo bixiyaan laba waxaanu ka doonaynaa inay ducada soo diraan waayo bini aadamku ilaahii koonkan iyo bini aadamkan iyo dadkan ba abuurtay ayay gamca kor ugu taagaan in ilaahay hawsha loo fudeediyo in ilaahay hawsha nala qabto in ilaahay waxaanu doonaynay inaanu amariyada aanu sidnay noo rumowdo oo aanu ka tagna 5 sano inay dhammaato annagoo uu ku guulaysanay shaqada ahayd inaanu qabanay ilaahay nooga soo baray insha Allah taala shaqaale la fudeediyo baa fududaata in ilaahay fudeediyo ilaahay waxaan nooga soo baray in shaqaalaha dawladda hoose noo wanaagsanaadaan oo amaanada ilaaliyaan oo dadkooda u shaqeeyaan intayna madaxdina inaanu noqono qaar ikhlaas wada oo wanaag wada oo ummadda waxay u soo ballan qaadeen ka dhabaynaya oo ilaahay idankii wax dadku dhibsadaan iyo wax sharciga ka soo horjeeda iyo wax ilaahay agtiisaba xaaraan ku ah aan samaynin alla naga yeelo insha Allah taala maanta waa farxad in badan baynu sugnay in badan baynu dhaska dadka jaarka ee xaafadda degan u dul qaateen buska iyo dhaska waxa ilaahay mahadiya wax ilaahay loogu xamdi nagaa inay maanta dhigmayso oo weliba waddada dhigmaysa ay tahay waddo la tayo ah waddada berbera corridor ee ka soo socota ee berbera ka timi ee halkaa la yaafkeeda ku gooday halkaa laga soo qaaday ilaa magaalada ay inoo gaadhayso ayaynu wadanaynaa dadka waxaan farayaa samirka horena waan u samirtay imikana degdeg uma fiicnaa samir
inta lagu qabtay bilaa lagu qabtay إن شاء الله تعالى مالين والبا مالين بتلعبين وقانا تلعب كلنا كسي درينا إلا هكا ينوسع عنو أدرك سنة إنه قادنا إن شاء الله تعالى إلهي با مهمنا إنه سورة قليي عوشنا والمان تودنا runtii hadalka badidiisii maayarkaa dhameeyey marka ilaahay waxaa ka baryayaa tan inoo suuro geliyey kuwa kalena inuu ilaahay inoo suuro geliyo fariinteeda gaarkiina waxa weeyaan in dadka aan cashuurta weli bixin inay cashuurta bixiyaan wejigii koowaad waxaa noo qabsoomay in aanu qaadno daamurkii hore ama leeyarkii hore oo aad u dhintay kadibna aanu dib ciid soo dhigno garaacno kadibna la taysgareeyo tayadeedii la hubiyo dhammaan tayadeedii markaanu hubinay combustion testigii la sameeyey wax kasta la sameeyey ee la verify gareeyey inay diyaar u tahay in daamurkii la saaro waxaa maanta ku bilaamatay in la dhigo asfaltigii amaba waddadii daamurka roogga ahayd waddadaasoo tayadeedu ay tahay mid la ilaaliyey markii hore waxaa tayadeeda la ilaaliyey ciiddii la dhigayey garaaciddeeda waraabinteeda leefalgaraynteeda maantana waxaa la dhigayaa asfaltigii oo tayadiisa la ilaaliyey hadday strengthskiisa noqoto hadday noqoto levelkiisa iyo dhigiddiisa marka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa madaxda dowladda hoose ugu horeeyo maayirku xogayaha iyo maayir ku-xigeenka iyo dhammaan golaha deegaankaba sida hagar la'aanta ee ay ugu hagar baxeen howlaha waddooyinka